بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، halkan waxaan ka soo gudbinaynaa casharkii koobaad ee tafsiirka qur-aanka kariimka ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala ha naga dhigo kuwii qur-aanka raaca oo rumeeya oo ku dhaqma tilaabo u qaata insha allahu tacaala. intaanan qur-aanka tafsiirkiisa bilaabin waxaan wax yar ka sheekay doonaa fadliga iyo ahamiyadda uu leeyahay qur-aanka in la barto macnihiisu iyo siday u wanaagsan tahay ee aysan ku filnayn qofka inuu qur-aanka lafdigiisa kaliya barto. maxaa yeelay qur-aankii markii aada akrinaysid haddaad rabtid inaad ku tadabburtid oo macnihiisa fahantid, haddii aad doonaysid qur-aankii inaad ku dhaqantid oo camalkiisa raacdid, waxa uu ku faraya inaad fartoontid, wuxuu kaa reebayana aad ka reebtoontid, waxaad u baahan tahay inaad qur-aankii macnihiisa taqaanid. xadiid uu imaamu axmed binu xambal uu soo saarayo ama ahar uu soo saarayo ayaa ninka la yidhaahdaa abi cabdiraxmaan assulami oo taabiciinta raggii ugu waaweynaa ka mid ah, wuxuu leeyahay waxaa noo sheekeeyay asxaabtii nabiga calayhi salaatu wasalaam kuwoodii qur-aankana barayay. waxay nooga sheekeeyeen annahum kaanuu yaqtari'uuna min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama 10 aayaat, inay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka bara jireen 10 aayadood. falaa ya'khuduuna fi lcashri اlukhraa xataa yaclamuu maa fii haadihi min alcilmi waalcamal. 10kaas aayadood markii ay bartaan 10ka ku xigta ma aysan gudageli jirin ama ma bara jirin ilaa ay bartaan 10kan cilmiga ku jira iyo fasirka iyo fiqhiga iyo diinta iyo camal axkaamta ku jirtoo dhan ayna ku dhaqmaan oo ku camal falaan, uma aysan gudbi jirin 10ka kale. qaaluu facalimna alcilma waalcamal, markaas waxay yidhaahdeen waxaan baranay cilmigii qur-aanka ku jiray iyo camalfalkii iyo sidii loogu dhaqmi lahaa. maxaa yeeley haddii qofku qur-aankii keligiisa yaqaano ee uusan macnihii fahansanayn, waa ay adag tahay inuu qur-aanku waxa uu farayo fartoomo, waxa uu ka reebayana inuu ka reebtoomo. inkastoo qur-aanka akhriskiisa uu ajar fara badan leeyahay ee uusan waxyaalihii kaloo la akrinayay la mid ahayn, haddana xaggii raaciddiisii kuuma suurtoobayso si dhaba ah u raacdid ilaa aada fahantid macnihiisa. markaasay asxaabtu rasuulku waxay leeyihin 10 aayadood haddaan qaadanno uma aanan gudbi jirin 10ka kale ilaa maaragtay aan ku dhaqanno oo cilmiga ku jira 10kaas aan la baxno. annagana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha naga dhigo kuwii barta oo raaca oo ku dhaqma oo ku camal fala. waa muhiim qofku inuu fahmo diinta, inuu ku camal falo. maxaa yeelay diinta fahamkeeda la-aantiis camalfal ma suurtoobayo. nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa xadiid macnaha asalkiisa uu bukhaari yahay, kutubta kaleo sunankana ay soo saarayaan, ayaa cabdullaahi binu cabbaas allaha ka raali noqdo, asagoo yar oo wiil yar ah ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu usoo diyaariyey biyihii uu ku dahaaro qaado lahaa oo nabigu ku weesaysa lahaa. markaas ayaa nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, man wadaca haadaa, biyahan yaa soo dhigay oo keenay ayuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam. markaas ayaa maymuuno oo xaaskii nabiga ah cabdullaahi binu cabbaas habaryartiisna ah ayaa waxay ku tiri cabdullaahi ayaa kuusoo diyaariyey. cabdullaahi dhinac nabiga ilmo adeeru kala ahaayoo nabiga adeerkiis cabaas bin cabdilmutalibaa dhalay, dhinacna maymuuno oo nabiga maymuuna bintulxaaris oo nabiga xaaskiisi iyo habaryar u ahaad.
markaas ayaa nabigu markii lagu yidhi cabdullaahi binu cabaasa kuu soo diyaariyey ayuu nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam allaahuma faqihu fi ddiin wacallimhu ta'wiil ilaahay diinka fahansii allaahuma faqihu fi ddiin waa saxiixu lbukhaari intaas ilaahayow diinka fahansii cabdullaahi binu cabaas ta'wiilka iyo tafsiirka qur-aankana bar haddii maaragtay qofku diinta uusa fahmin ma dhammaystira laakiin qofku diinta haddii uu fahmo waxa weeye khayr buuxa ayuu haystaa xadiidkii bukhaariga waa tulaa nabigu calayhi salaatu wasalaam man yuriid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin qofkii ilaahay khayr buuxa uu la doono ilaahay diintuu fahansiiya diinta ayaa ilaahay fahansiiya marka qofku markuu diinta fahmo oo diinta barto markaas ayuu qof buuxa yahay oo khayrkiisu dhammaystiran yahay ilaahay ha naga dhigo diinta kuwii fahma diinta furaheeda iyo maaragtay saldhigeeda iyo aasaaskeedana waxaa ah qur-aankii kariimka ahaa intii fahamkaaga qur-aankii uu la eg yahay ayaa dadka ka saraynaysa maxaa yeelay dadka fuqahada oo culammada islaamka oo fiqhiga soo saaray iyo a'imada maaragtay la raacaahi waa dadkii qur-aanka ugu fahamka badnaa ee xukunkii qur-aankao dhan banaanka soo dhigay ee halkii aayad intaasoo macaani iyo intaasoo xugun ayay ka qaateen markaas ayay noo caddeeyeen aayaddan axkaamtii ku jirtoo dhan aayadaha kale axkaamtii ku jiray ayay inta soo arooriyeen ayay banaanka iskugu keeneen oo isku xixijiyeen siday isu lahaayeen allaha ka raalli noqdo xadiis uu warinayo ama ahar uu warinayo imaamu maalik kitaabkiisa muwadaca la yidhaahdo ayaa wuxuu leeyahay yaxya binu saciid cabdullaahi binu mascuud ayaa qof wuxuu ku yuu yiri inaka fii zamaanin kahiirin fuqahaa'uh qaliilin quraa'uh waxaad joogtaa waqti dadka fuqahada ah oo diinta fahansan oo diinta yaqaanaahi runa fahansan ay badan yihiin dadka quraacda ah oo qur-aanka korka ka yaqaan oo aan diinta sida kale u fahansanayna ay yar yihiin macnaha qaari dad ahoo qur-aanka korka ka xifdisan waa yar yihiin laakiin fuqahada aada u badan dadka diinta fahansan waqtigii salafkana sidaas ayaa la danay jiro qofku inuu diinta fahmo ayaa la danay jira maxaa yeele haddaa qur-aankii korka ka baratadooda waxba fahansanayn wax kaa reebmaya ma jiraan ilaa maba taqaanid waxa qur-aanku ku farayee marka fahamka diinta iyo barashadii macnaha qur-aanka iyo axkaamtii islaamka fiqhigii islaamka ayaa fiqhigii xadiidkii qur-aanka ayaa la danay jiray xifdi kaliya lama danay jirin waagi hore marka wuxuu yihi waqti waxaa joogtaa dadka fuqahada cabdullahi bin mascuud alo asxaabigii khaadimkii rasuulka ah khaadimkii rasuulka ah oo dadka waliba qur-aanka aada u yaqaanay ah marka waxaa joogtaa huu yiri waqti fuqahada iyo dadka diinta fahansan ay aada u badan yihiin laakiin dadka qur-aanka xifdisan ay aada u yar yihiin tuxfadu fiihi xuduud اlqur'an wa tudayacu xuruufu waqtigan waxaa la ilaaliyaa huu yiri oo ay dadku aada ugu dadaalaan in xuduudda qur-aanka ay ilaaliyaan oo wuxuu qur-aanku ka reebayo ay ka reebtoomaan waxay qur-aanku uu farayana ay fartoomaan xuduudda inay ilaaliyaan laakiin dadku kuma dadaalaan uu yiri korka inay qur-aanka ka bartaan aada uguma dadaalaan uu yihi waqtigan macnihiisay ku dadaalaan inay fahmaan qaliilu man yas'al kahiiru man yucطi waxaana aada u yar waxa ku weydiinaya oo masaa-ishii dadka weydiinaya aada u yaryihiin dadkii diintay wada barteen haddii la helo qof weydiinayana
dadka u jawaabaya oo diintii fahansan aaday u badan yihiin yutiiluuna fiihi الصalaaة wayaqsuruuna اlkhudba waqtigan salaada ayay dheereen maalan jumcadii markii la tukanayo salaadii jumcada way dheereynayaan suuradihii soo arooray ku tukanayaan khudbadana waa soo gaabinayaan sida fiqiga qofka inuu diinta fahansan yahay lagu yaqaano waa sidaas salaadii ayay dheereynayaan khudbadiina waa soo gaabinayaan oo jumcadii markay tukanayaan salaadii way dheereynayaan oo suuradihii ku soo arooray ku tukanayaan laakiin khudbadii waa ay soo gaabinayaan fahamka saxda qofku diinta inuu fahansan yahay ah waa sidaas inuu khudbadiina gaabiyo salaadiina dheereeyo laakiin hadda bilcagsi wey khudbada aad saacado iska soconaysa waa soo socota isla xadiidkana ku jirta aharka yubadduuna acmaalahum qabla ahwaa'ihim dadkuna acmaashooday muujinayaan intaysa hawadooda iyo waxa ay rabaan muujin saasaa cabdullahi bnu cabaas uu ku yiri inta hore sida waqtigu isu bedeli doono u fiirso wuxuu yihi wasayaأtii calى الnaasi zamaanu qaliilu fuqahaauhu kahiiru quraa'uhu waxaa dadkas u imaan doona waqti dadka diinta yaqaanaahi oo fahansanoo fuqahadiisaahi ay yar yihiin dadka quraa'daha qur-aanka xifdisanna ama qur-aankii akrinaya ay badan yihiin tuxfadu fiihi xuruufu اlqur'an wa tudayacu xuduuduh waxaa korka laga bartaa qur-aanka xuruuftiisa qof kasta xaafid laakiin xuduudda qur-aanka waa la jebiye waa la baabiye waa laga tegayaa hu yiri waqtigaasa imaan doona u fiirsa maantay dadkii hadda dadka wax miisaamaya dadkii diinta yaqaanay ma ahan dadka kale way wax miisaama maantay ayagaa marka waxay leeyihin diintii waa la fahmay diintii waa la bartay macnaheedu ma ahan haddii dadka qur-aanka xifdisan ay bataan dadka hadlaya ay bataan in diinta fahamkeedii iyo cilmigeedii inuu batay ma ahan u fiirsa cabdullahi bnu mascuud hadalkiisa asxaabiga jaliilka ah wuxuu leeyahay fuqahada dadka diinta si dhaba u fahansanaa yaraan doona waqtiga soo socda laakiin dadka qur-aanka yaqaana aada u badan doonaan haye natiijada ka dhalanaysa maxay tahay qur-aanka xifdigiisa lagu dadaalayaa in qofku xuruufta uu korka ka barto aa lagu dadaalayaa waxaana dhici doonuu yiri xuduudda qur-aankaoo la dayaco xuduudda qur-aanka oo la dayaco ayaa imaan doonta wax raacaya ma jira maxaa yeelay maba la fahansanaba qur-aanku wuxuu ka reebay iyo wuxuu farayo dadku ma fahansana qur-aankii xifdiyan qur-aankii ay dusha ka barteen marka qur-aanku wuxuu ka reebayo iyo waxa uu diidayo midna maba fahansana waa aragna maantay qur-aankii la daliishanayaa lagu baduugaya ummadii dhiigga lagu daadinaya allahu akbar xifdiga qur-aanku waa badan yahay waana waqtigaas uu sheegaya asxaabigu laakiin xuduuddiisa raacitaankeedu waa yar yihiin kahiiru man yas'al qaliilu man yucطi dadka weydiinayaahi waa badan yihiin maxaa yale dadkii diinta ma yaqaanin marka waxay masaa-ishii iyo cilmiga weydiinaya waa badan yihiin qaliilu man yucطi laakiin dadka u jawaabayaahi waa yar yihiin oo macnaha jawaabtii saxda ahe dadka siinayaahi waa maaragtay aada u yar yihiin ilaa fuqahadii waa yar yihiin soo maahan waa la jawaabaya hadii la rabo sida maanta socoto laakiin maxaa lagu jawaabayaa ma sidii saxda ahayd maya yutiiluuna fiihi اlkhudba wayaqsuruuna asalaa waxay dheereynayaan khudbadii aada loo dheereynaya salaadiina waa la gaabinaya waa tii hore cagsigeed sidii sunada ahayd rasuulka ka soo aroortay ma alayh الsalaatu wasalaam yubadduuna fiihi ahwaa'ahum qabla acmaalihim waxay muujinayaan hawadooda ayay soo hormarinayaan acmaasha ka hor acmaashii saalixada ahayd waxa weeye ka hor maanta haddaad diin iyo hawlaheed ka hadashid intaan qof kale la gaarinba dadka caamadaha kugu leefaya ayagaa hawadoodaas waxa ay rabaan haddaada sheegin waxa weeye kala badbaadi maysaan qof kastoo mas'alo ku weydiinayana wuxuu kuu weydiinayaa sida asagu uu rabo inaad tiraahdid sida xaqa inaad u sheegtid ma badna dadka inay sameeyaan xadiis imaamu muslim uu warinayo ayaa waxaa asxaabiga la yidhaahdo abi waa'il ayaa wuxuu leeyahay
nin ayaa u yimid la yidhaahdo nahiik binu sinaan ayaa cabdullaahi bin mascuud u yimid markaasu wuxuu ku yihi yaa abaa cabdiraxmaan kayfa taqra'uuna hada alxarf xarafkan sidee u akrisaan xarafkan sidee u akrisaan alifan tajiduhu am yaa-ah xarafkan ma alifaad u akrisaan oo aada u taqaana mase ya oo ah min maa-in gayri aasin miyaad tiraahdaan oo alifa mase min maa-in gayri yaasin oo ya aha tiraahdaan uu yihi xarafkaas weydiiyey asxaabiga dadka ma ogtahay caamada ah iyo dadka qaarkood waxyaalahaas xujooyinka ahay raadiyaan diinta kale barashadeeda dan kama leh markaasoo lagu leeyahay qofkii saas haa ma taqaanaa hebelkii saas haa ma taqaanaa dhacdadii waxaas ka dhacaan ma taqaanaa waxyaalahaas ma taqaanaa hadduu rabo salaadiisii dahaaradeedii shuruuddii arkaantii waxaaso dhaxbad kama yaqaan waxyaalahaas yaryaroo naftu rabto xujadahay ka daba wareegaan marka wuxuu yihi cabdullaahiyow min maa-in gayri aasin miyaa oo alifa mase min maa-in gayri yaasin oo ya miyaa huu yihi cabdullaahi binu cabaas intuusan u jawaabin wax kale wuxuu ku yihi wa kula alqur'aani qad axsayta gayra haada horta qur-aanka dhan oo meeshaan mahana qur-aanka kaleo dhan miyaa korka ka taqaanaa qur-aanka kaleo dhan korka ma ka taqaanaa markaasuu yihi inii la aqra'u lmufasala fii rakca anigu subaca khamiisaad ayaan hal ragca ku tukadaa hu yihi subax khamiisaad ayaan hal ragca ku tukadaa markaasuu cabdullaahi wuxuu ku yihi hadan ka hadi shicr waxaad sheegaysaas waa wax oo aada u hololabinaysid sidii shicirkii oo kale gabayga oo kale ina aqwaaman yaqra'uuna alqur'aana laa yujaawizu taraaqiyahum dad ayaa qur-aanka akrinaya isagoo halkaan guriga aan dhaafsiisnayn walaakin idaa waqaca fi lqalbi farasakha fiihi nafac haddii qur-aanku uu qofka qalbigiisa ku dhaco oo uu ku sugnaado markaasuu anfaca markaas ayuu anfacaho wax u tarayaaho qur-aanka qofkii uu wax ka reebayaa wixii qur-aanku ka reebay uu qofku ka reebtoomayaa wixii uu farana uu fartoomaya marka qur-aanka aan baranno ku camal falno markaas ayaan fadligiisa iyo ajarkiisa helaynaa xadiidka ugu dambeeya fadliga qur-aanka aan ku soo khatimaynaahe sahal bin mucaad aljuhaniy allah ka raali noqday wuxuu leeyahay aabbihiisa soo ka warinaya nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi man qara'a alqur'aana wacamila bima fiih ulbisa waalidaahu taajan yowma alqiyaama qofkii qur-aanka akriya oo ku camal fala qur-aanku waxa uu sheegayo macnaha awaamirtiina waa fartoomay wixii qur-aanku ka reeban oo ka reebtoom qofkii sidaas sameeya labadiisa waalid maalinka qiyaamo waxaa loo duubayaa bahal cigaal ah duubeen aa loo duubayaa daw-uhu axsanu min daw-i shams fii buyuuti dunya low kaanat fiikum daw-uhu axsanu min daw-i shamsi fii buyuuti dunya low kaanat fiikum oo iftiinkiisu ka wanaagsan yahay qoraxda iftiinkeeda haddii guryihiina ay kasoo dhex bixi lahayd guryihiina adduunyada iftiinkaas duub ka iftiin badan ayaa loo maraya famaa danukum biladii camila bi haada maxaad u malaynaysaan qofkii qur-aanka inta bartay ku camal falay oo ku dhaqmay haddii waalidkiisiiba sidaas loogu xidho duubkaas maxaa u malaynaysaan qofkaasaa ugu dhaqmo qur-aanka allahu akbar lama sheegi karo waxa uu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka fadaa-ishiisa iyo ajarkiisa hana siiyo kuwii raaca axkaamtiisa iyo barashadiisa allaha naga dhigo bismi illaahi الraxmaan الraxiim tafsiiru suurati اlfaatixa suuradda leeraa faatixada ayaan tafsiirkeeda gelaynaa bismi illaahi الraxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم سورة
faatixada la yidhaahdo waxay ku soo degtay sida raajixa ah maka ayay ku soo degtay maka ayay ku soo degtay oo qur-aankii maka ku soo degay ayay ka mid tahay faatixa waxaa loogu magacaabay tii furaha ahayd ama bilowga ahayd maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisu ku furfurtay oo ku bilowday kow oo waxa weeye suuradda qur-aanka ugu horeyda xagga tartiibka laakiin xagga soo degitaanka maya midda kale salaadiina ayadaa lagu furfurtaa salaadii ayadaa lagu furfurtaa oo lagu bilowdaa fadaa'il ayay leedahay suuraddaasi suurat lfaatixa la yidhaahdo fadaa'isheeda waxa ugu weyn waxaa ka mid ah inaan qofka salaadba ka ansaxayn ilaa uu faatixada akriyo salaadba qofkaasu ma jirto markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiid bukhaari iyo muslima wuxuu ku leeyahay laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati اlkitaab qof aan faatixada kitaabka akrin salaadiba uma jirto salaad saxiix ah uma jirto marka waa muhiimadda iyo weynanka ay leedahay ayay ka mid tahay imaamu nawowi markuu xadiidka sharxay wuxuu leeyahay waxaa xadiidkan uu caddaynaya oo ku sugan xadiid kaleu sharxaya kana waa soo qaatay in faatixada in la akriyaha ay waajib tahay oo ay caynowday wax kalena aysan ka gudayn qofkii aan ka caajizano faatixada aan qof aqoon haduu masalan soo islaamay marka qofkii caajiska aha markii laga reebo wax kale oo ka gudayo bedeli karaahi ma jiraan waa madhabka wuxuu leeyahay imaamu maalik iyo imaamu shaafici iyo aimada islaamka intooda badana asxaabtii iyo taabiciintii dadkii ka dambeeyey imaamu abi xaniifa allah ka raali noqde iyo qeyb yar waxay leeyihiin uu yiri qur-aana un waajiba laakiin sida raajixa waxa weye faatixada qofka akrin inaan salaada u jirin xadiid kale ee uu warinayo abi saciid bin almucalla asxaabiga la yidhaahdo wuxuu leeyahay masjidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaan ku tukanayay markaas ayaa nabigu uu yeeray calayhi salaatu wasalaam anigoo salaadii ku jira ayaa nabigu u yeeray markii nabigu u yeeray nabiga ma aana ajiibin oo lama hadlinuu yiri markaasaa nabigu wuxuu markaasaan waxaan ku iri yiri nabiga markaan u imid yaa rasuul allah inii kuntu usalli rasuulka ilaahay anigu waa tukanayay uu yiri uu yiri marka nabigu mas'alo barayaa oo ah mas'aladaasi haddii qofkaani uu salaada kula hadla nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam inaan salaadu kaga burin hadduu qofku hadalku waxa weeye khitaab qof aad la hadlaysid haddaa ilaahay kula hadlaysid salaadu kaa buri mayso maxaa yeele salaadii ad waxaa ku leeda iyaaka ilaahow adiga ayaan nacbudu ku caabudaynaa wa iyaaka ilaahow adigaan nastaciinu kaalmo ku weydiisanaynaa marka haddii cidda aad la khidaabaysa oo la hadlaysa ilaahay tahay salaadu kaa buri mayso cidda aad la khidaabaysa oo la hadlaysa hadday tahay rasuulkana salaadu kaa buri mayso maxaa yeele salaadii maxaan ku leenahay assalaamu calayka ayuha nabiyu assalaamu nabadgelyo calayka korkaaga haato ayuha nabiyu nabigaanow waraxmat ullaahi ilaahay naxariistiisa iyo wabarakaatuhu ilahay barakadiisuna korkaaga ha ahaadeen aan leenahay marka assalaamu calayka waa annagaas leh marka haddii cidda aad la khidaabaysa ay nabiga ama ilaahay tahay salaadu kaa buri mayso markaasuu nabigu raba asxaabiga inuu ku baraarujiyo markuu asxaabiga u yimid oo yiri rasuulka ilaahay waxaan kuula hadli waayey salaadaan ku jiray markaasuu nabigu wuxuu ku yiri alam yaqul illaah istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum miyaan ilaahay dhihin ilaahay iyo rasuulkiisa ajiiba haddii ay idin yeeraan wax idin noolaynaya oo diintiina iyo iimaankiina wax noolaynaya marka laakiin cid kale haddaad salaada kula hadashid oo aad cid kale kula khidaabtid salaadaada way buraysaa luqad kale haddaad salaadaada ku hadashid salaadaada way buraysaa hadda waxaa la sheegaya dad oo telefoonki salaada ku dhex qabanayo telefoonku markuu u soo dhaco inta qabta le salaadan ku jira wax yar ugu soo celi iyo subxaan allah salaada haddaad hadal kale iyo cid kale la hadashid salaadaada way buraysaa
markii sidaas uu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam ayuu wuxuu igu yiri uu yiri law callimannaka suuratan hiya acdamu suwar fi lqur'aan qabla an takhruja min almasjid waxaan ku barayaa suuradaha qur-aanka ugu weyn yaa intaada masjidkan ka bixin uu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam kabacdi nabigu gacantayduu qabtay markii uu doonay nabigu inuu masjidka ka baxo wuu iisii sheekeynayay ayaan waxaan ku yiri alam taqul la ucallimannaka suuratan hiya acdamu suuratin fi lqur'aan rasuulka ilaahay soomaada dhihin waxaan ku barayaa suurad oo qur-aanka suuradaha ugu weyn ka mid ah markaasuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wey suuradda magacaas leh marka alxamdu lilahi rabi اlcaalamiina ogey waa magacyada faatixada ka mid tah xadiid soo aroortaa jirtoo leh nabigu alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin salaada ku furfurto waa faatixada wey magaceeda faatixada magacyo fara badan ay leedahay ilaa 12 magac imaam اlqurdubi aba sheegay suuratu alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin iyo suuratu اlfaatixa iyo اlkitaab iyo faatixat اlkitaab iyo alkaafiya iyo shaafiya iyo magacyo fara badan ilaa dhowr iyo 10 magac ay leedahay marka alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin suuradda leeda wey yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam nabigu muxuu daba dhigay hiya sabcu lmathani waa toddobada la labalabeey toddobada la labalabeey oo toddobadaas faatixadu waa 7 aayadood toddobadaas aayadood haddii bisinka lagu daro 7 aayadood oo caadi wey haddii bisinka laga reebana غayr اlmaqduubi calayhim wala daaliin intaasa aayad gooniye ah oo ancamta calayhim aayad ku horeysa marka calaa kulli xaal markasta faatixadu waa 7 aayadood toddobadaas la labeeyey maxay ta marka waxa weeye faatixada ayaa 2 jeer ragco kasta lagu soo celinaya ragco kasta lagu soo celcelinaya waad isku soo celcelinaya 4 ragco baa ku soo celcelinaysa iyo 2 ragcada tukanaysa 3 tukanaysa culamada qayb waxay leeyihiin asabcu lmathani macnaheed waxa wey 7 la labeeyey makana waa kusoo degtay madiinana waa kusoo degtay sida raajixa laakiin maka inay kusoo wada degta wey wاlqur'aan اlcadiim aladii uutiituh uu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam waana qur-aankii weynaayo aniga la isiiyey qur-aankii weynaa ee aniga la isiiyey wey waa xadiid bukhaariya riwaayo kale asxaabiga hadalka nabigu uu ku yiri waxay sheegaysaa ubay binu kacab oo sidaas oo kale nabigu uu ku yiri maxaa ii ajiibi weysay markaasuu yihi rasuulka ilaahi waa tukanayay markaasuu nabigu yihi miyaadan ilaahay qur-aankiisa ka helin marka ilaahay leeyahay istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum lima yuxyikum ilaahay iyo rasuulkiisa ajiiba hadday idinkugu yeeraan wax idin noolaynayo markaasaan iru yihi balaa walaa acuudu in shaa allah saasaa ilaahay yihi waa run umana laaban doona inaan mar dambe ku dhageysto anigoo salaada ku jira rasuulka ilaahay markaasaa nabigu ku yihi calayhi salaatu wasalaam tuxibu an ucalimaka suurata lam yanzil fi اtawraati walaa fi اlinjiil walaa fi الzabuur walaa fi اlqur'aani mithluhaa ma jeceshahay inaan ku baro suurad ayadoo kale aysan ku soo degin kitaabkii towreed oo nebi muuse iyo injiil oo nebi ciise iyo zabuur oo nebi daawuud iyo furqaan oo nebi moxamed ayadoo kale uusan kusoo degin kitaabka nebi moxamed furqaanaha suurad ayadoo kale uusan kusoo degin inaan ku bara ma jeceshahay markaasaan iru yihi nacam yaa rasuul allah rasuulka ilaahay markaasaa nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam kayfa taqra'u fi salaa salaada sidee u akrisaa maxaa ku akrisaa markaasaan faatixada akriyuu yihi markaasuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam wاladii nafsii biyadihi ma unzilat fi الtawraa walaa fi اlinjiil walaa fi الzabuur walaa fi اlfurqaan mithluhaa ilaahayga aniga naftayda awoodiisa ay ku jirtaan ku dhaartaye towraad iyo injiil iyo zabuur iyo furqaan laguma soo dejin ayadoo kale laguma soo dejin wainaha sabcu min almathani wاlqur'aan اlcadiim aladii uctiituhu waana 7 la labeey iyo qur-aanka weyn oo aniga la isiiye wey oo ilaahay uu suuraة اlxijri ku yiri walaqad aataynaaka sabca min almathani wاlqur'aan اlcadiim
waxaan ku siinay 7 oo kuwa la labeeyay ah iyo qur'aan weyn waa iyaduu yiri riwaayo kale wuxuu leeyahay ubay nabigu markuu sidaas yiri uu nabigu doonay soo socdo albaab ka bixi tagay anuna gadaaran isu celinayo waxaan sadhahay yiri nabigu albaabkiisa ka bixin ilaa aad maaragtay uu ku sheego suurada markii dambe iriyo rasuulka ilaahay aaway aayadda ay suurada ay ballan qaaday markaasuu nabigu yiri faatixada maxaad ku akhrisaa saan iriyo faatixada markaasuu nabigu sidaan yiri wax ka sareeya tawreed iyo injiil iyo zabuur iyo furqaan kuma soo degin faatixada marka tafsiirkeeda bismillaahir rahmaanir rahiim bismillaahi ilaahi magaciisan ku bilaabay ilaahi magaciisa ayaan ku bilaabay waa tarbiyo ilaahi subxaanahu wa tacaala uu ummadiisa tarbiyeynayo wixii wanaagsanba inay ku bilowdaan magaca ilaahi subxaanahu wa tacaala ayagoo kaashanaya maxaa yeele magaca ilaahay markaad cunto ku bilowdid shaydaana kaa cararaya magaca ilaahay markaad gurigaaga ku gashid shaydaana kaa cararaya magaca ilaahay markii aad ku seexatid shaydaana kaa cararaya magaca ilaahay markasta kaasho qur-aankii nabiga ugu horeeyay calayhi salaatu wasalaam ee ku soo dega ilaahay muxuu yiri iqra bismi rabbik aqri adigoo ilaahay magaciisa kaashanaya ama ku dheehan marka bismillaahi ilaahay magaciisa ayaan ku bilaabay allihi arraxmaani naxariista guud ku naxariisanayay allihi arraxiimi naxariista gaarkaa ku naxariisanayay macaani fara badan ay leedahay laakiin hadda ma u banbaxayna macaanidaas oo dhan ilaahay naxariis guudu ku naxariistaahoo maalinka adduunka markii la joogo muslim iyo gaalaba wuu u naxariistay gaalada waa ka u nicmeeyo u kaadiyey aakhiro ayaa xisaabtooda loo dibdhigay marka naxariistiisa ilaahay mid guud weeye adduunka markii la joogo arraxiimna naxariis gaar ah ilaahay ku naxariisto aakhiro markii la tago ilaahay muuminiinta bisu u naxariisa doonaa gaaladu aakhiro wax naxariisa kuma leh alxamdu mahad lilaahi ilaahay baa iska leh ammaan iyo sifo wanaagsan ilaahay baa iska leh oo ilaahay waxaan uga mahdinaynaa abuurka uuna abuuray waxaan uga mahdinaynaa islaamku naga dhigay waxaan uga mahdinaynaa nicamtiisa aan kala go-ayn nicamta ilaahay oo aan kala go' lahayn ee ilaahay uu ku leeyahay wain tacuduu nicmat allah laa tuxsuuha nicamta ilaahay haddii aad tirisaan in aad maaragtay ma koobi kartaan nicamtaasaan ilaahay uga mahdinaynaa maxaa yeele nicmada ilaahay markii aad ku mahdisid ilahay waa kuu kordhinaya lain shakartum la aziidanakum haddii aad shukrisaan waa idin kordhinayaa hu ilahay leeyahy walain kafartum ina cadaabii la shadiid haddii aad kufrisaan oo nicamta ilaahay qarisaanna aniga cadaabkaygu waa daran yahu le ilahi subxaana wa tacaala cadaabba waxa ugu horeeya in lagaa qaato nicmataas marka ilaahay wuxuuna barayaa inaan dad noqono shaakiriin ah oo xaamidiin ah oo ilaahay nicamtiisa ku mahdiya alxamdu mahad lilaahi ilaahay baa iska le allihii rabi lcaalamiin caalamka rabbigiisa ahaa caalamiin waxa weeye waa hadda wax badanaa laga dhigo ismu jinsi weeye marka caalamyo badanaa jira bini aadamku waa caalam malaa'igtu waa caalam jinnigu waa caalam geeduhu waa caalam xayawaanaadku waa caalam caalamyo badanaa jira marka waxaasoo caalamahoo dhan ilaahay asaga iska leh rabbigoodii asaga rabbi waxa weeye allaha milkiya allaha hagaajiya allaha la caabudo allaha la macaanidaasoo dhan allaha koriyo tarbiyeeya ilaaha iska leh marka faatixada markii la bilaabayo oo la fasirayo waxaa lasoo qadaraa oo lasoo geliyaa quuluu dhaha oo iraahda bismi illaahi ilaahay magaciisaan ku bilaabay alli arraxmaani naxariista guud ku naxariisanayay allihii arraxiimi naxariista gaarka ku naxariisanayay sidaasaa loo wadayaa ilaa laga gaara iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin maxaa markaas ilaahay lala khitaabaya si hadalku isu yeesho alxamdu mahad lilaahi ilaahay baa iska leh sifo wanaagsan iyo ammaan ilaahay baa iska leh allihii rabilcaalamiin caalamka rabbigiisa ahaa allihii arraxmaani naxariista guud ku naxariisanayo adduunka markii la joogo muslimga gaalo u naxariisanayay allihii arraxiimi naxariista gaarka ku naxariisanayo aakhiro markii la tago muuminiinta kaliya u naxariisanayay
jala jalaaluh. ilaahayga raxmadiisu shaamilada tahay raxmadda ilaahay wax kastay ka waasac noqotay, way ka ballaaranta. ilaahayga raxmadiisa ay khalqiga dhan ay kala gaartay. ilaahs ayaan ku mahadinaynaa. oo adduunka markii la joogo raxmadda ilaahay camat ilmu'min waalkaafir, muslim iyo gaalba waa ay kala gaartay. raxiimna waxa weeye waa ilaahay tan maaragtay uu ku khasisay muuminiinta ilaahay subxaanahu wa tacaala. maaliki yowmi ddiin, maaliki yowmi ddiini, addiin waa abaalmarin, yowmna waa maalinkii, maaligna allah iskala weye. marka abaalmarinta maalinkeeda allihii iska lahaa, oo waxa weeye maalinka qiyaamo ilaahay ummadda qof kasta camalkiisa uu ku amaal marinayo. oo faman yacmal mithqaala daratin khayran yarah waman yacmal mithqaala daratin sharan yarah laleeyahay. qofkii wax yaroo khayra samaystana uu arki doono, qofkii wax yaroo shara samaystana uu ciqaabkooda arki doono. maalinkaas ilaahay baa iska leh. marka ilaahay maalinkaas asagaa iska leh wuu yidhi, muxuu haddaba soo asagu iskama leh? hadda asaga iska leh. laakiin hadda adduunka markii la joogo dadaa wax sheega karo, qof kasta milki caadiho majaasa uu sheega kara, wuxuu dhihi karaa waxaas anaa iskale, waxaas anaa iskale. laakiin maalinka qiyaamo markii la gaaro cid wax sheega karta ma jirto. ilaahay muxuu dhihi doonaa maalinka qiyaamo? liman ilmulku lyowm, maanta yaa mulkiga iska leh? ilaahay ka jawaabi doona lilaahi alwaaxidi alqahaar, allaha keligiisa oo qasbada badan, allahaasa iska leh. marka maalinkaas cid wax sheega karta oo xataa majaaz ahaan dhihi karta anigaa waxaan dembiye ama anigaa sheegta ma jirto, ma jirto. marka maalig haddii la akriyo laba qiro wey, maliki iyo maalig. haddii maalig la akriyo waa allaha iska leh. haddii melig la akriyana maliki yowmi ddiini sida qirada kale ay sheegayso, allaha boqorkeeda ah wey. maalinka abaalmarinta maalinkeeda allaha boqorkeeda ah, oo boqorka keligiisa maalinkaas ah. allahu akbar. cid kale oo wax sheega kartahay ma jirto. iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin. waataan faatixada nurbilowgeed waxaa lasoo gelinayaa, quuluu waxaad tiraahdaan bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin alraxmaan الraxiim maaliki yowm اddiin. saas soo geliya marka, saasaa lasoo gelinaya markii la fasirayo. iyaaka nacbudu, iyaaka ilaahu adigaan nacbudu ku caabudaynaa dhaha. wa iyaaka ilaahu adiga ayaan nastaciinu kaalmo ku weydiisanaynaa iraahda. ilaahay baa lala khitaabayaa hoo. horta waxa weeye cidda aan caabudaynaahi waa ilaahay, oo cibaadada aan ku khasisaynaa ilaahay weeye. cid kaloo caabudayna ma jirto. qofka muuminkaana marba hadduu iimaan yeeshay, iimaankaas ayaa wuxuu caddaynayaahi ay tahay inuusan qofku cid kale caabudayn. muumin mar hadduu noqdaba qofku wax kale inuu caabudaahi waa mustaxiil, haddii kale muuminuusa ahayn. marka ilaahow adaan ku caabudayna markii aan niri, hadda anagu bini aadan aan nahay, cibaadadii sidii la rabay ma ula imaan karnaa mase ulama imaan karno? annagu awoodeenna wax aan kula imaan karna ma jirto. awoodeenna waxba kulama imaan karno. marka ilaahay waa inaan weydiisanaa inuuna karsiiyo cibaadadaas. markaasaan waxaan leenahay wa iyaaka ilaahu adiga ayaan nastaciinu kaalmo ku weydiisanaynaa, oo noogu kaalme inaan ku caabudno. iyaaka ilaahu adiga ayaan nacbudu ku caabudaynaa, adigaan ku caabudaynaa ilaahu. marka caabudaadaadi waxay u baahan tahay inaan kaalmo kaa helno si aan u karno inaan ku caabudno. marka wa iyaaka ilaahu adiga ayaan nastaciinu kaalmo ku weydiisanaynaa, ee ilaahuna karsii, ilaahuna karsii inaan adiga ku caabudno. awood ilaahu noo sii. isticaanada in ilaahay uu ku siiyo awooddii aad waxaan kula imaalaheed ayaan dalbayna. ihdinaa ilaahowna hanuuni asiraata jidkii ilaahu nagu hanuuni almustaqiima ee toosna, wadada toosan ilaahu nagu hanuuni. oo waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan baryeynaa markaad caabudaysid ilaahay oo aad kaalmo weydiisatid wadada saxda inuu kugu hago kugu toosiyo, ilaahay inaad weydiisatid wey.
adigu wax awoodaada la imaan kartid ma jiraan. haddaa istiraatid xataa toosnow ma toosi kartid haddaan ilaahay ku toosin. marka waa duco, waana qur'aan, waana duco. ducada qur'aanka ku jirta ducooyinka kale waa kasii xeel dheerta. ihdinaa ilaahayna hanuuni asiraata jidkii ilaahay nagu hanuuni almustaqiima ee toosnaa. ilaahu wadada xaqa na tusi. allaahuma arina alxaqa xaqa, allaahuma arina alxaqa, ilaahu xaqa na tusi. kow haya xaqan haddana xaq ahaan noo tusi, oo xaqa waa in ilaahay xaq ahaan kuu tuso. laakiin haddii xaqii aada aragtid laakiin xaqii aad baatil u aragtid soo khatar maaha. waa in ilaahay xaqa ku tusaho xaq ahaan kuu tuso. warzuqna itibaaca, raacitaankiisana ilaahu nagu arsaq. haddii xaqii laftigiisa aa aragtid ee xaq ahaan u aragtid haddana a raaci weydo waa dhib soo maaha. ilaahu raacitaankiisa nagu arsaaqo na karsi. wa arina albaaila baatila, baatilkana ilaahu na tusi. haye haddana baatil ahaan noo tusiyo inuu baatil yahay na tusi. warzuqna ijtinaaba, ka fogaashihiisana ilaahu nagu irsaaq iyo inaan ka dheeraano. marka ilaahu na tusi wadadii xaqa aheed iyo diintaadii toosneed inaan raacno. ilaahu nagu hanuuni. ilaahu nagu sug islaamkii aada ambiyadaada la soo dirtay iyo rusushaada oo nebi maxamed aa ku khatimta calayhi salaatu wasalaam. ilaahu dadka saxda ah wadadoodii kuwa raaca naga yeel. ihdinaa ilaahu na tusi, na hanuuni. dullanaa wa arshidnaa, ilaahu na tusiyo nagu hanuuni. asiraata jidkii ilaahu nagu hanuuni almustaqiima toosna. wadada highwayga ah toosan. wadada ilaahay waa wada toosan oo laalaab iyo luuqluuq aan lahayn. haddaad ka baartid wadadaas toosan wadooyinkii shaydaanka walaa tattabicu subul ee la yiri ayaad gelaysaa. marka waa kula leexanaya. marka jid toosan oo jannadii aada adigoo ku jooga haddaad bayrtid luuqluuqyada hadday kula leexdaan xagay kula aadayaan? naartii kula aadayaan. allahu akbar, ilaah naga badbaadi. wadadaas toosan marka ilaahay wuxuu na barayaa muuminiintu inay kala sareeyaan oo kala wanaagsan yihiin oo ilaahay loo kala dhow yahay. marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu na barayaa inaan dadkaas wanaagsan wadadoodii ay mareen inuuna marsiiyo inaan codsano. sidoo kale dadkii xumaay oo gaaladii iyo wixii xumaana wadadii ay mareen aan ilaahay ka magan galno. markaasuu ilaahay wuxuu leeyahay siraata aladiina kuwii wadadooda ilaahow nagu hanuuni ancamta calayhim aada u nicmaysay. dadkii aa u nicmaysay wadadooda ilaahu nagu hanuuni. allahu akbar, dadka u nicmaysay wadadooda ilaahu nagu hanuuni. kuwaa u nicmaysay waa kuwe dariiqa man tafadalta calayhim biljuudi walincaam, dadkii aada ku tafadusho nicmada aada ugu tafadushay ilaahu nagu hanuuni. waa kuwa ilaahay uu qur-aanka ku sheegayoo uu yihi waman yutic illaaha warasuul faulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim. qofkii adeeca ilaahay iyo rasuulkiisa wuxuu micigooda noqon doonaa kuwii ilaahay uu u nicmeeyey. waa kuwe min annabiyiina waa ambiyadii, waasidiiqiina waa kuwii run badanayaasha ahaa, washuhadaai waa kuwii shuhadada xaqa ku shahiiday oo jihaadka runta ku shahiiday. ma ahan hadda maanta kan oo caalamka islaamka ka jiro islaamka lagu banaysanayo. wasaalixiina iyo dadkii wan wanaagsana. waxasuna ulaa'ika rafiiqa, kuwaas ayaana ugu fiican kuwa lala saaxiibo. saaxiibtinimo iyo rafiiq kuwaas ugu fiican ula ilahi subxana wa tacaala. ilaah wadadooda nagu hanuuni. siraata aladiina kuwii wadadooda ilaahu nagu hanuuni ancamta calayhim aada korkooda u nicmaysay. kuwaas wadadooda ilaahuna raacsiy. waa ambiyadii, sidiiqiintii, shuhadadii, saalixiintii wadadooda ilaahu nagu hanuuni. ilaahay uu suuradda kale ku sheegay gayri lmaqduubi calayhim, kuwii aada u carootay, kuwii loo carooday. almaqduubi calayhim kuwii loo carooday gayrkood wadadooda ilaahu nagu hanuuni. macnaha kuwaas loo carooday wadadooda ilaahu naga leex. ee dadka ayaga ka soo hara oo fiican kuwa loo carooday, kuwa aan ahaynoo dadka wanaagsana wadadooda ilaahu nagu hanuuni. gayri siraati
almaqduubi calayhim kuwa loo carooday wadadooda kayrkeed ilaahu nagu hanuuni oo kuwaas loo carooday ilaahu naga leexi waladaalliin iyo kuwa baadiyooday wadadooda kayrkeed ilaahu nagu hanuuni kuwa baadiyoodana wadadooda ilaahu naga leexi kuwa loo caroodayna wadadooda ilaahu naga leexi kuwa loo carooday waa kuwe waa yahuud kuwa baadiyoodayna waa kuwe waa nasaartii iyo kirishtankii ilaahu naga leexi nasaarada nimanka leera masiixiyiintiiya iyo kuwa loo caroodo yahuudiya labadaba wadadooda ilaahu naga leexi ilaahay subxaanahu wa tacaala meeshan tarbiye ayuu na siinayaa tarbiyada uu na siinaya waxa weeye markuu ilaahay ka hadlayo dadkii uu u nicmeynayay nicmadii asaga isu tiiriyo yiri waxa weeye hadalka uuna barayo kuwa aad u nicmaysay inaan nidhaahno ilaahay kuwa u nicmaysay laakiin markii wixii xumaa aan ka hadlayno kuwa loo carooday iyo kuwa baadiyoobay ilaahay ka cabire nama dhihin ilaahay kuwaad u carootay iyo kuwaad lumisay sidaas nooma dhihin ilaahay maxaa yeelay ilaahay wuxuuna barayaa aadaabo oo ah wixii wanaagsan in ilaahay loo tiiriyo wixii xunna naf iyo shaydaan loo tiiriyo naf iyo shaydaan in loo tiiriyo wixii xun sidaasa fiican oo wixii qaldama aad naftaada shaydaan u tiiridid wixii saxanna ilaahay a u tiirisid tarbiya nala siinayo wey cidda wax baadiyeynaysa cidda wax u caroonaysa kulli ilaahay wey laakiin tarbiya looga dan leeya marka kuwaas lumay iyo kuwa baadiyooda labadaba oo kuwii rasuulkeena nooga digay calayhi salaatu wasalaam oo uu sheegay in ummadiisa dhow aad dad u raaci doonaan xadiidkii bukhaariga ahaa macnihiisu ahaa latattabicunna sanana aladiina min qablikum shibran bishibrin wadiraacan bidiraacin xataa low salakuu juxra dabbin la salaktumuuhu aw kama qaala sal alla alيh wasalam waxaad raaci doontaan u yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam kuwii inka horeeyay wadadooda taaka taako iyo dhudhun dhudhun aw raaci doonta macnaha si kastay u sameeyaanba waa raacaysaan markaasuu nabigu wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam hadday god abeesa galaan waad la gelaysaan macnaheedu maxay tahay ficil kasta oo xun oo ay sameeyaan ayaa la samaynaysaan maanta hadda waxaan aragnaa ficilada ay nimankaasi sameeyaan kuwooda xun oo liitaahi ficilada ay sameeyaan ayaa dadkii dhallinyarada ah oo muslimiinta ahaa door bidayaan tinta sida uu u jarto ugu fool xun uu u jaranayaa hadalka sida uu u hadlo ayuu u hadlayaa socodka sida uu u socdo ayuu u soconayaa intaas waxaaba kasii daranba mid ayaa iska bilaabaya ficil xun hadda waa shaydaana hirgelinaya ficilkaas xun xataa gaaladii caadiga aheed oo damiirka lehed isuma quuraan dhalinyarada muslimiinta ah ficilkaas xun ayay uga daysanayaan masalan waxaan aragnaa maanta surwaalkii inta salka laga rido ayaa halkaas bawdiyaha agteeda uu sii ordaya sida dhalinyarada muslimiintu ay salka uga ridanayaan surwaalkii markaasuu marka uu socdo lagu inta kala fogeeyo si surwaalkaas dhacaya uu u celiyo wuxuu u soconayaa si oo ilaahay aada leedahay makhluuq uu dooriyaba wey waxaa intaas dheer hadda labiska ugu qurxoon oo ay aaminsan yihiin oo faashinka waxyaalaha leera ah muxuu yahay surwaalkii bawdadaa laga soo jarayaa dhexdaa laga jarayaa dharkii annaga waagii hore inta googo-o meelihii laga toli jiroo dhan markuu cusub yahaaba lasoo jaraya markaasaa meel kasta asagoo ka go-an oo dabadii ka go-an oo bawdadii ka go-an oo dhinac ka go-an oo lug ka go-an ood leeda bahal miya xala ku mirtay ayaa suuqa la keenaya hore dhalinyarada muslimiinta qaarkood waxa ugu horeeyo qaata wey markaas markaasa qaar waxay leeyihiin salaadiiba ku ansaxaysa maxaa salaada marka hore dambi ku jirtaaba cawradaadii yaaba muuqatee salaadii ma dhar googo-on ay ku ansaxaysaa haddii intii cawrada ahayd ay banaanaato oo wiilashii kaliya ma ahan gabdhihii xataa sameynaya waxaan arkaynaa gabdhihii muslimaadka ahaa waxaa hadba qolaba qolay ku daysanaysaa hadda maryihii hoos laga qaadanayo oo dirac aha jilbaha agtiisa ayadoo la marsiinayo
oo halkaas jilbaha agtooda lagu keenayo, haddana sigisaan yaroo halkaas anqawyada ah oo ku joogta, intaan dhexe ay u bannaan tahay, shanshadii o dhan u bannaan tahay, saa ku socotaa. qaar surwaal yaroo gaaban inta qaataan oo shoorti ah ay waxay qaadanayaan maro hore ka furan oo ay yacni qamiis aa mudid, markaasay xoogaa qaarka dambe uga qarinayan, laakiin kor markay soo socoto jilbaha agtiisay maro surwaal gaaban ku sitaan. waxaas waa tilmaanta nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu leeyahy taaka taako ayaad u raaci doontaan, taaka taako ayaa u raaci doontaan. waalidka ilmaha tarbiyadooda marka hore ha hagaajiyo. haddii ilmaha aad tarbiyadooda xumaydaan, maalan ba reer galbeedka kale waxaa arkaysaa dadka dumarka soomaalida ku noolaa, ilmihii markay yaryar yihiin surweelkooda gabdhihii u xirayaan, madaxay u banaynayaan, dhajis dhar ahay ku xirayaan, sida ay rabaan u yeelayaan. markay 10 gaartoo la soo qabsatay waxaas oo aysa ceeb ku ahayn, ay isku dayayaan inay ka reebto, kama reebi karaan. marka hore tarbiyadooda fasahaadida. waalidku waxa ugu wanaagsan ee uu caruurkiisa siiyaahay waa akhlaaqda wanaagsan. uu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam. marka ilaahay subxaana wa tacaala ha nagu anfaco. faatixada markay dhammaato waxaa sunno ah in aamiin la yiraahdo. aamiintu kama mid ahan faatixada, waa sunno kale ee nabigu noo jiray calayhi salaatu wasalaam. intaas ayaan casharkeena kusoo koobayaa. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh.